sanadkii hadda aan soo dhaafnay ee 2024 kaliya channelkayga wuxuu sameeyay waa 4244.69 sent. Haddii lacagtan been u malaynayso refresh baan dhahayaa YouTube-kayga si aad u aragto lacagtan inay dhaqaaqaysa in kale. Page-kayga markaan refresh u diray saa u jeedid wuu soo baxayaa oo waxaan rabaa inaan ku tuso internetka xitaa u nusqaamiyey saa u aragto lacagtaas inay been tahay iyo inay dhab tahay. Okay, waxaa u jeedaa markaa 4244.69 sent. waa kaliya waa the last 365 days oo u dhigan macnaha sanadkii 2024 u dhigan. Okay, waxaan rabaa markan aan ku tuso last 7 days toddobada cisho ugu dambeysay intuu YouTube channelkayga lacag ahaan sameeyay ayaan rabaa inaan ku tuso. toddobada cisho ugu dambeysay YouTube-kayga wuxuu sameeyay $129.20 ayuu sameeyay. $129.20 ayuu sameeyay, sorry. Okay, haddii aan ku tuso marka channelkayga intii ugu dambeysay intuu jiray cimrigiisa ama lifetime-kiisa wax la dhaho inta uu sameeyay waa lacag gaaraysa 6684.50 sent. waxaa isweydiinaysaa saaxiib subscribe-ka aa haysto waa yaryahay lacagta aa haystana waa badan tahay. waxaa jira tab iyo xeelad fara badan oo lacagtaanayta macnaha aan ku shaqeeyey waxaana rabaa muuqaalka marka step by step in aadna kula wadaago qaabka lacagta aa u shaqeynay insha allahu. saa daraadeed fadlan haddii ay channelka ku cusub tahay marka hore muuqaalka like garay si uu asxaab fara badan u gaaro, marka xigtana channelka subscribe dheh si aan u gaarno 20,000 oo subscriber. aad iyo aad u mahadsantahay. Okay, saaxiibayaal halkan aad u jeedin marka waa YouTube channelkaygii. haddaan dashboardkiisa tago oo is leedahay YouTube channelkaaga ma ahan saa u jeedid meesha waxaa ku qoran Cabdi Nuno ayaa ku qoran. dashboardkiisa haddaan tago marka waa meeshaan kaga tusi lahay subscribe iyo waxyaabahan haysto 18,008 subscriber ayaan haystaa saa u jeedid. xaggan waa muuqaaladii ugu dambeeyay ama live streamkii aan question answerka ka jawaabayay. haddii aan xaggan dhahana oon account-kayga ku dhufto waxaad arkaysaa marka Nuno Academy inuu yahay channelkayga. haddii aan gudaha usii galana waxaa arkaysaa marka inaan macnaha channelkayga YouTube-ka aan gudaha u galayo ugu tuso marka caddeyn ahaan inuu YouTube-kayga aan ku dhex jiro iyo in kale. Okay, marka saa u jeedid muuqaaladii ku soo baxay oo haddaan videos ku dhufto muuqaaladii ugu dambeeyay ayaan rabaa in YouTube-kii aan kusoo gudbiyey inaan ku tuso aad u xaqiiqsato weli inuu YouTube channelkayga. halka waxaa ka arkaysaa marka waa thumbnail-kaan sameeyey iyo muuqaaladii ugu dambeysay aan sameeyey. Okay, marka waxaa is leedahay walaalow inoo faa'iiday qaabka aad lacagta ku keentay lacagta farahada badan YouTube-ka u shaqaysay noo faa'iiday ayaa leeyahay. Okay, waxaan rabaa marka saaxiibayaal inay idin faa'iideeyo marka saa daraadeed waxaan ku laabanayaa marka YouTube studio. waxaan rabaa marka step by step ina adigana waxaa waaye lacagtan lacag la mid ah samaysid. waxaan rabaa inaan YouTube channel maaragtay aad furato kadibna lacag intaan iyo ka badanba aad ka samaysid. waxaana rabaa inaan ku tuso marka wadadii aad u mari lahayd lacag 8,000 ama 6,000 iyo ka badanba $15,000 xitaa $20,000 xitaa inaad YouTube-ka ka samayso ayaa laga yaabaa. Okay, marka way isweydiinaysaa marka saaxiib lacagtan see ku samayso. Okay, lacagtan saan ku sameeyey ayaan rabaa inaan ku tuso. saa daraadeed marka hore saaxiib waxaan tegayaa marka setting meeshay ku qoran tahay setting ayaan click siinaya. setting markaan click siiyo marka waxaa ii soo baxaya marka generalka marka ii soo baxay kadib lacagta qaabkan ku sameeyey waxaa waaye saaxiibayaal meeshan waxaa ii dooran TWD wax la dhaho oo ah lacagta Taiwan-ka. waa fahmaysaa umayna lacagta Taiwan-ka YouTube channelkayga intuu sameeyey waa $6,000 iyo ka badan. laakiin halkan haddaan ka dhigo USD ama lacagta dollarka haddaan ka dhigo waxaa waaye lacagteeda aqligaaga magelayso oo waxaa iskugu soo aruuraysaa wax yar oo xitaa aadan haweysanin. haddaan xaggan ka dhigo USD dollar haddaan ka dhigo oon save dhaho I don't want ayadoo USD ah inaan lacagteeda idin tuso. marka dhalinyarada waxa lagu waalay prank baa idinku sameeyay horta waa idinka raali gelinayaa. dhalinyarada waxa lagu waalay ayaan rabaa inaan idin sheego. hadda lacagta aniga doorneed waxay TW ba ahayd. marka youtuberada waxay sameeyeen saaxiibayaal adinka aqliga ma la idin TW xaggan baa waxaa la saarayaa inta setting la tago. setting-ka marka la tago xaggan USD dollar ku qoranta waxaa la dhigayaa marka lacagta Taiwan-ka ama lacagta German-ka ama lacagta Kuban-ka ama lacagaha kale laga dhigayaa. markaasaa lacagta YouTube-ka aad samaysay waxay noqonaysaa lacag qayrul caadi oon aqligaaga galaynin ayay noqonaysaa. aad baa ugu xumaa marka inaan idin sheego in lacagta aad soo aragteen ay ahayd lacag false ah ama lacag micnaha marka waddanka la bedelo lacag fara badan noqonayso. oo haddaan USD dollar ba saaran USD dollar lacagtan shaqeeya waa lacag aad u yar laakiin markaan u bedelo lacagta Taiwan aad iyo aad u badan. marka waxaan arkay dhalinyaro noocaas koorso loogu iibinayo oo inta lacagta la bedelo oo tan Taiwan-ka la saarto la leeyahay saaxiibayaal channelkan kaalaya qaabkan lacagtan la mid inaa samaysan rabaa koorsooyin baa idin bixinaya
maxay saanba idin yeelaya dhalinyarada marka lacagta markay arkaan iimaanka ayaa kasoo dhacayso waxay isleeyihiin youtube channelka lacag intaan laga diiba laga samayn kara annagana waa inaan soo galna maya saaxiibyaal dadka koorsooyinka iibiya weliba soomaalida aydan dhaho soomaalida iyo dadka caddaanka ee koorsooyinka iibiya waxay sameeyaan marka ay rabaan inay idin tusaan dashboardkooda ama marka ay rabaan inay idin tusaan waxa la yidhahdo maxaa la dhahay channelka qaabka uu egyahay waxay tagayaan keliya settingkaas kadibna waxay soo bedelayaan qaabka ay lacagta kuu tusi lahaayeen haddii lacagtooda USD dollar ay tahay way saxan tahay laakiin TWD hadda aniga aan sheegay oo ah lacagta Taiwanka haddii la saaro haddii $100 Taiwanka ah waxay isku $100 caadiga ah ee USD-ga ah ama dollarka ah Taiwanka waxay ku noqonaysaa lacag gaaraysa $5,000 $5,000 lacag gaaraysa ayay ku noqonaysaa halkaas waxaa ka cad marka koorsooyinka badanka aad iibsataan ee laydin leeyahay waxaanan gadna waxaa la idin saaraa dashboardka ayaa wax laydin geeyaa lacagta Taiwanka weligaa farsamada iska ilaali hadduu ku dhaho qof dashboardkayga ayaan ku tusayaa ama waxaa rabaa inaan ku tuso lacagta youtube-ka ka sameeyay hadduu ku yidhahdo qof saaxiib waxaa dhahdaa marka hore inaga jeegaray lacagta kuu saaran inay dollar tahay ama USD ay tahay haddii ay dollar tahay waa saxanta lacagta waa shaqaysay keep going aan leedahay laakiin hadday lacagta Taiwan tahay weligaa ruux noocaasa koorsaha ka samaysan muuqaalkeena waa iska prank maanta waxaa rabay dhalinyaro fara badan oo dhalinyarteena ka mid ah qaabka lacagaha loogu cuno war haddii ay noqoto maxaa la yidhahdaa website-ka qaar ba intay AdSense-ga tagaan AdSense intay tagaan lacagta AdSense-ga waddanka ay ku qaadanayeen bay bedelayaan Taiwan bay ka dhigayaan markaasaa lacagta blogga ay ka shaqeeyaan waxay noqonaysaa lacag qayrul caadi ah oo $10,000 $5,000 ah adna waxaa lagu leeyahay marka lacagta maa helay saan baan wax u helay koorsaan iibiya maxay baan iibiya soomaalida inta ugu badan waa iska mar iska ilaaliya haddan ba kuu sheegaya weliga inta aad baxda saaxiib ha ku iibsanin lacag course aan intusoo itaabsi ahayn qofka hadduu ku sharxayo step by step wuxuu asaga qabtay step by step nooca uu mar hadduu ku tusayo waa sax laakiin soomaalida inta badan waxyaabaha ay duubaan waa theory qof caadi ku tusayo lacagta uu youtube-ka ka shaqeeyay ma jirto waxaa laga yaabaa aniga inaan dhowr muuqaal idin tusay oo idin dhahay halkaas muuqaal intaasaan ka sameeyey aniga inta badan meeshan waa isaga baashaalaa waxaan jeclahay keliya inaa idinku wax idiin faa'iideeyo mana jecli qof dhalinyaro oo soomaaliyeed in youtube-ka lagu dhex gaado oo koorsooyin qalada lagu iibiyo shalay baan waxaa arkay nin dhalinyaro soo dhigayo qof data analysis yaqaan qof cyber security yaqaan qof maxaa la yidhahdaa web design yaqaan qof waxaas yaqaan hadduu jiro fadlan dad baan shaqaalaysiinaya la soo xiriir war qofka intaas yaqaan ee kaamirad haysto ee website haysto muxuu kaasoo doonaa isaga muu shaqaysto adigoo data science haysto ama xirfadda data science leh cyber security xirfadda leh see nin facaa ugu shaqaynaysa qulubta maa laba waxyaabaha qaar inaan dhalinyaraan isweydiiso war $100 ee jaabkaaga ku jira loo socda ninka wax idin tusayo screenkiisa soo duubo wax walba idinla wadaago laakiin qofka hadduu dhaho qof noocaas aan u baahna waa shaqaalaysiinaya wuxuu rabaa inuu $500 madaxaaga ku sameeyo adigana $50 ku siiyo ragnimada saaxiib in isku shaqaysta maahan qofka biniaadamka waxaa habboon in si sax ah wax loo tuso dhalinyarada soomaaliyeed weliba kuwa koorsooyinka iibiya iska ilaaliya wallaahi waa iska mars wax ay ku tusayaan male intooda badan youtube waxay u jiraan adinka lacag idinka sameeyaan yar baan waxaa arkay habeen wuxuu soo dhigay waxaan $150,000 aan ka sameeyey buu lahaa maxaa la yidhahdaa koorsooyinka waa saxdee 150 adinku baa laydinka sameeyey wax yar buu idin duduba dropship maasaana kan baasaana kadibna koorsa $900 gadaya $900 haddii 10,000 oo qof maanta ay iibsato lacagtuu helaya aqligaaga balqiyaas adigana 9,100 waa dhimatay waxaa waaye dropshipna laguma barin waxaa waaye wax yaroo af Soomaali baa lagu sharxay saaxiib ka digtoonow qof youtube-kan ku jiro inaad koorsa ka iibsato haddii meeshaanayta lagu kala faa'iidaysanayo oo run la sheegayo oo dhalinyarada Soomaaliyeed horumarkeeda la jecel yahay screenka la soo duubo qaabka wax loo sameeyo iyo qaabka wadada loo maro iyo waxyaabaha la tuso laakiin haddii ay noqoto koorsaan haya miga iibsanaysaan saama sameynaysaan oo hadday noqoto saaxiibayaal dadkaanayta keliya waxaa loo jeedaa adigoo miskiin oo Soomaaliya baadiyada ku nool $50 ilaa $20 haysta nin baa caawa ku tashanay oo ku seexanay weliga hadda waa iga waanan weliga saaxiib koorsa bilaash ah ha iibsanin koorsa bilaash ah ha iibsanin haddii aad wax u baahato youtube-ka gal ku qor raadi information weliba macallin la'aan ayaad helaysaa uma baahnid qof Soomaali xitaa wax ku tuso muuqaalkeena marka saaxiib waa iska kaftan intaas ayaa rabay inaan idin la wadaago aad iyo aad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh